waxaan ka hadli doonaa maanta ee bacdo idmo sida aniga ay ila tahay oo macnaha fikradeyda ay ila tahay waxaan ka hadli doonaa insha Allah cudurka ku baahay adduunyada oo dhan oo leeyahay coronavirus waa macnaha haddii uu hal wadan kaliya qaban lahaa amba hal gobol oo qaban lahaa waxaan dhihi lahayn waa endemic laakiin maadaama oo adduunyada oo dhan uu ku baahay waxay noqdeen wax oo epidemic ah oo adduunyada oo dhan ku faafsan marka eeba hadoodma intaas oo dawlo oo jirta adduunyada badan waa wada haya waa macnaha waa laga wada sheeganayaa meelo gaara oo Soomaaliya ay ka mid tahay maahan dadkii markii aan weydiiyay cudurka uu ku dhacay waxay leeyihiin cudurku uu ku bilaabanayaa qufaca markuu ku bilowdo waxaa ku xiga qandho kabacdi waxaa ku sii xigaya lafaha oo ku wada xanuuna virus maadaama uu yahayna ma dhihi karno annagu daawo oo sax ayaa jirta oo lagula tacaali karo laakiin calaamadii markaas noo soo baxda oo aan isleenahay qandhaa jirta wax qandha waa sii karnaa haddii lalaba aragno wax lalaba waa sii karnaa oo daawo ah haddii aan aragno qofka in aad qandhada u sii badan tahay wax qandha waa sii karnaa haddii qufac far badan aan ku aragno wax qufac waa sii karnaa ha ahaatee laakiin waxaa la leeyahay wuxuu ku bilaabanayaa qufaca siriiska ah kabacdi qufaci waa sii badanaa qandhaa imaanaysa qandha markay timaado haddana waa imaana qofka inuu neefsan waayo oo hataa sanbabihi oo maaragtay si fiican u ataagareeyo marka haddana waxaa dhibaatada ka taagantahay dadka immunitadooda difaacooda oo hooseeyo badanaa macnaha dadkaas waxaa la leeyahay macnaha mabu adkaysan karaan oo waa dadka u dhimahayaba haddii marka ay systemically waxaan ka wadaa macnaha qaybta neef mareenka oo dhan amba qaybaha kale tee lamida amba urta mareenka amba dhiig mareenka haddii qaybahaas qaybo kamida qofka uu leeyahay amba uu sonkor qabo amba uu dhiig kar qabo amba uu neef qabo amba waxyaalo kaleeto lamida uu qabo waa qasab da'na uu yahay soo uga baxsado aad u adag tahay ha ahaatee haddana adduunyada marka aan weydiinay percentage ahaan 100 qofood haddii meel la iskugu keeno 4 u dhimanaysa amba 3 u dhimanaysa amba 5 u dhimanaysa oo percentage-ka dhimanaa waa yaryahay okay ilaahay baa mahadle dhaqaatiir fara badan oo xamar ku nool oo waxaa jirta aniga iga aqoon badan amba iga asyaanaysan amba hortayba ka hadashay waana salaaman yihiin oo waxaan leeyahay waa walaalihiis macnaha waa mahadsan yihiin midda kaleeto waxaa hadda anagu aan samaynaa in gacmahaynana aan saabuun ku dhaqno dadka darsaanka nala ana aan saabuun u qaybino si macnaha saabuuntaas ay gacmahooda ugu dhaqaan haddii awoodooda ay yarta waxaan kaleetoon samaynaa annaga naftayna meesha hadda ku nool oo guud ahaan hospital ku nool inaan is salaaminba annagoo weliba haddana ilaahay aaminsan oo macnaha wixii ilaahay noo keeno inay nagu dhacayaan aaminsan marka coronavirus waa macnaha cudur khatar ah cudurkan wuxuu in yar ka sii qatarsan yahay cudurka la leeyahay kaduudiya waa kaduudiya xumaaday baan leeyahay anugu kaduudiya xumaada waan leeyahay markii hadda koor kaduudiya ugu dhacay marka waxaa noqdayba si oo nuuc kale taa noqday marka dadku nuuc ay noqonayaan qof ay hor ka bilaabayaan xanuun ay hor ka bilaabayaan isla markiina macnaha waa dhinteena haddana kuugu xigto waxaan aqaanaa dad badan oo hadda ingiriiska aan saaxiibo ku ahayn oo aan aqrinin oo mar Itaaliya ku soo maray laakiin ingiriiska degan oo odayaal ahay waa dhinteenaana liigu yiri marka waxaan leeyahay raxmad Allah siiyo cudurku meel walba iska imaana ilaa idinkiis waxaan Soomaaliya u rajeeyaa inuusan u imaanin in ilaahay naga badbaadiyo maadaama aan nahay wadan maaragtay iska tabariyar ilaahay waxaan ka rajeynayaa inuu wadankayna maaragtay nooga badbaado aan ka wada badbaadno waana ka badbaadi doonaa ilaa idinkiis